nin mas'uul ah cilmi miisaan leh maskaxiyo aqoon kuma naystayna waa Maxamed Cadow yalla moogaan bulsho nin mas'uul ah cilmi miisaan leh maskaxiyo aqoon kuma naystayna waa Maxamed Cadow yalla moogaan bulsho maatidii baahan caawin kare maski doorashada mid kale maanta uma rabne aan mushaxne walaalkura Maxamed si maatidii baahan caawin kare maski doorashada mid kale maanta uma rabne aan mushaxne walaalkura Maxamed si Are you ready for change? Yes. Are you ready for change? Yes. Then you will have it inshallah. Ilaahay baa mahadleh oo isukaya keenay halkan annagoo nabad qabnay iyo idinkoo nabad qaba magaalada Sabuli waxay ka mid tahay magaalooyinka Wajeer South astaamta oo ah wada noolaansho iyo waxa Ingiriiska lagu yiraahdo Ben Cosmopolitan meeshan dadyo walaala ah oo hayba kala duwan baa dega si nabad ah oo daris wanaagna way ku degan waxaanad moodaa deegaanada sidaas oo kala ah xogaa in la yara faquuqaya they belong to nobody because everybody is there soma now that is going to change under me inshallah if you give me your vote haddaad codkiina ii hurtaan Sabuli aabay yeelanaysaa hormar bay u dhaqaaqaysaa insha Allah ta'ala wada noolaanshihiina iyo daris wanaaga aad ku nooshihiin waa wax la doonaya inaan ku naaloonna ku faana aad astaan u noqotaan deegaanada kale si dadkeena isu dhaxgalaan wax badan la kala faa'iido Soomaha ani waxa idin sheegayaa Soomaali baa hal iyo macadallahi ee ummadii aan ka dhashay ogaadeen ma kala qaaday Djibouti markaan tago waxa la yiraahdaa waa dhulkaaga soo dhawow Soomaali galbeed markaan taga ama kilalka shanaad waa dhulkaaga soo dhawow baa la yiraahdaa waqooyi galbeed oo hadda loo yaqaan Somaliland markaan tago waa dhulkaaga baa la yiraahdaa Xamar markaan joogo waa dhulkaaga baa la yiraahdaa waqooyi bari oo Puntland soo dhawow dhulkaaga waa la yiraahdaa mana ku dareemo inaba haba yaraatee wax kaydasho ah iyo inaan dhulka ku cusbahay dhulkaygi dadkaygi ehelkaygi abtiyaashay adeeraday eedayaalkay habaryaraday meeshay joogeen oo dad aan ka fogeen ay la degan yihiin miyaan kala qaadaya waxaad isu diyaarisaan midnimo inshallah midnimo Wajeer South say one Wajir South one Wajir South inshallah ta'ala waqti waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xafradan diiran soo dhaweyntan iyo reerentan reer Sabuli waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo anoo ku hadlaya magacii aspirant senator Wajir County waxaan idin leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaa ii muuqata runtii waxaa ii muuqata sadaal fiican aan u filaayo waxa aan doonaynay inaan heli doono faraxa iyo reenreenta ilaahay naguma qasaarinayo insha Allah saama maqashid marka ilaahay ha noo saqiro kalsoonida waa loo baahan yahay annagana waxayna siini dhiiranaan sida aad u maaragtay aad u faraxsan tihiin iyo kalsoonida aad qabtiin iyo soo dhaweynta maaragtay dhiiraneed noqodna siiseen intaaba waxayna tusaysaa in aad ka fikiri haysiin mustaqbalka dad hoggaan hufan oo maaragtay qiimo badan dadkan ku hogaamiyo marka annagana waxaan ilaahay ka baryaynaa in aan noqono
kuwa ilaahay mas'uulka loo dhiibay uu sahlo kuwaasaan ilaahay ka baryaynaa insha allah marka saasaan ku soo gaabinayaa aniga durbaankayga waan la imaan doonaa mar dhow maxamed cadow mar dambe ma calacalaaya waxaan dhihi abow iga horree ama iga dambe durbaankaygaan la iboonaa magaaladana waan baryi doonaa si fiican baan u wada hadli doonaa kibistaas lagu qaybsanayo miiska korkiisa countiga yaan rabaa toorigayda intaan galka kala soo baxa insha allah wixii aan xaq u leelahay inaan soo qaadanno haddii ilaahay yidhaah marka saasaad qabi doontiin Saburi waxaa ku nool qolo badan ciido badanaa degan waa cosmopolitan cid gaar u degan ma laha waxaan yeelanay 5 sano countiga markii la laba jeer waay waxaan yeelanay gabar ugu rebla oo sub county noo soo riday hooyaan leenahay waxaan ka codsanaynaa aabi wajeer south oo qaasatan Saburi inaan noqoto maxishmiga waxaa tahay MB bahdi iyo beesha soo xulatay horta wow waxaa kaloo tahay halka nin oo reew awasweyne aan ahayn oo gaaris ka imaaday oon filayna inuu iska bedel keeni doono inaad tahay waxaan kaa codsanaynaa waxaa tahay maxamed cadow maanta ma ee lagu fiiriyo cadow fidmada ha laga fogaado ha lagu fiiriyo cadow fidmada ha laga fogaado ha lagu fiiriyo cadow farshaxan daawaysan waaye ha lagu fiiriyo cadow fidmada ha laga fogaado idin salaamayna salaan sharaf la ayaan idin salaamayna waxaad wadateen waan idin la qaadana waan idin la soo dhaweynayna insha Allah aniga oo ku hadlaaya afkii Sabuli sub county aniga ku hadlaaya waxaan idin sheegaynaa oo marqaati ah waxaad wadateen inaan idin la wadana oo cadeen ah waxaan idin sheegayaa afarta ogaadeen absamiya ashraaf inta wadanka ku nool waxaad arki doontaan insha Allah biidnaahi alkariim maxamed cadow iyo sinatiirka markay soo galaan isbedel qeyr qaba inaad arki doontaan insha Allah biidnaahi alkariim waxaydan arki jirin inaad arki doontaan biidnaahi alkariim jidadka inay laamin noqoni doonaan hashini gurnaad inay dhali doonto afartan naasna ay ka hanaysan tahay oo dararka soo daayni doonto insha Allah farax badan baad arki doontaan biidnaahi alkariim waxaan idinka codsanaynaa had sidaan u soo qaadanay qabiilka amuudana u soo qaadanay wiilasha absame iyo ogaadeen iyo ashraaf iyo awinta ku nool wajeer saw koonfurta wajeer inta ku nool ceelkii laga oona waa laga cabi doonaa biidnaahi alkariim waxaan idinka codsanaynaa ninka idin la qaadaan codsiga aan wadnaa intaay maatay safara meelo dheer ka imaatay soo dhawaada Sabuli ku soo dhawaada ani warkaydu wuu gaaban yahay odayaasha hore ayaa si fiican u hadleen warkayda waxaan rabaa maxamed cadow muxushmuwa imbiga wajeer sood u sharaxan cid fara badan oo ogaadeen la dhahayd ka dhalatay wadan dheer oo fara badan baad ka dhalatay Sabuli meesha la dhahay inaan ka hadlaani kama hadlay meelaha kale Sabuli ayaan joognaa maanta fadlan waxaan ka codsanaynaa kollaba hooyaday waxa la yar ninkii guursadaba waa adeerkay annaga kii soo galaba waa imbigeenne waxaan ka codsanaynaa haddii aad soo gasho fadlan Sabuli hooyaan yeelane insha Allah hooyaan yeelane hooyada Faadimo Geediyaan laha waa arkaysaan magaalada Geesta markii laga soo galaayo waxaa laga dhiso waa arkaysaan maanan arki jirin waxaan ka codsanaynaa haddii aad soo gasho ilaahay kuu qoro kursigaas Sabuli waxaa degan qabiilo fara badan ma aha Sabuli tulooyinkan hadda siyaasadda lagu asaasay ma aha Sabuli waa magaalo weyn Habaasweyne wajeer la helay ayay la qarnita waxaan ka codsanaynaa waagii la isla dega jire oo dadka xalaasha ah ay isla degna annaga meel aan ku kala guurna ma hayno fadlan waxaan ka codsanaynaa ninkii soo galaba gacanta bidixdu nagu qabtaa waxaan ka codsanaynaa inaad gacanta midigta nagu qabato oo Sabuli qaasata soo fiiriso haddii ilaahay kursiga kuu qoro ogaadana isku ka mid uu ahaado salaam calaykum waraxmatullaahi waxaan u malaynayaa tii uu maartay aqbalka ahayd inay tahaan u malaynayaa waxyaalaha hadda uun xoogaa waqtiga yaa xasaasi iska yahay waqti fiican bay hadda soo galeen maqribe hadal badan lagama gaaro waxaan u malaynayaa midnimo iyo aad looga hadlayaa midnimada hal la xoojiya hadduu ogaadeen yahay hadduu daarood yahay hadduu maartay absame yahay
midnimada aad ha looga hadlo wax khaas ayaan laga dhigin midda kale nimankan hadda noo imaadeen nin maaragtay mp rabo iyo nin senator rabo labadaba aan gacan qabanna kuuraha si fiicana loo siiyo xalaal leh waxaan ka codsanayaa maxamed cadow aadan inta kuuraha la siiyo dhammaan aan sugayna ninkan maxamed cadow waa nin laaqaana oo aqoon leh oo wajeer dhammaan county dhammaan laaqaan maxamed cadow tanu fresh maxamed cadow tosha maxamed cadow juu maxamed cadow keligiis waay maxamed cadow mp iska dhaafe governor wajiha county yuu u qalmaa